السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا AMA Associates maanta waxaan ka hadlaynaa business valuation. Business valuation waa qiimeynta ganacsiga. Haddii aan si kale u dhigo, waa habraaca lagu xaqiijiyo heerka ay joogaan qiimaha dhaqaale ee ay leeyihiin ururada ama shirkadaha iibsigooda la danaynayo. Business valuation waxaa la oran karaa waa aalad aad muhiim u ah oo ay isticmaalaan maalgashadayaasha, ganacsatada hal abuurka leh, deyn bixiyayaasha iyo danleyda kale si ay go'aan bisil uga gaaraan doonistooda ku aadan acquisitions iibsiga ama la wareega ganacsiga, mergers isku biiridda, investment maalgashiga iyo macluumaadka maaliyadeed ee lala wadaagayo shirkadda. iibsiga ama isku biiridda inta aan la dhaqan gelin waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo qiimiga oo daras ahaan uu ku kacayo iibsiga shirkadda diiradda saaran iyo heerka isfahan ay taagan yihiin shuruudaha wada hadallada ee ka dhex soconaya labada dhinac. maalgashadayaashu waxay isticmaalaan investment analysis xeelado farsamo oo lagu ogaan karo attractiveness heerka soo jiidasho iyo nacfiga laga heli karo fursadaha maalgashi ee bannaan. waxay kaloo soo saari karaan fair value qiimaha habboon ee lagu iibsan karo equity stakes saamiga raasimaaliyadeed ee la danaynayo. qiimeyntu waxay door weyn ku leedahay warbixinada maaliyadeed sida go'aaminta qiimaha assets and liabilities hantida iyo qaanta diiwaan gashan si sanadle ahna loo soo diyaariyo. waxa kale oo qayb lixaad ka qaadataa tax planning qorsheynta canshuuraha, compliance oo hoggaansanaanta arrimaha la xiriira sharciga. dhanka kale qiimeyntu waxay muhiim u tahay litigation and dispute resolution dacwadaha sida isku dhaca ku yimaada saamileyda dhexdooda iyo xalinta khilaafaadka sida intellectual property disputes isku qabsiga hantida aqooneed. haddaba sidee loo qiimeeyaa ganacsi? hababka la isticmaalo waxaa ka mid ah income approach habka qiimeynta ku salaysan dakhliga, market approach habka qiimeynta ku salaysan suuqa, iyo asset approach oo ah habka qiimeynta ku salaysan hantida uu leeyahay ganacsiga. income approach habka dakhliga waxa uu diiradda saarayaa expected future income dakhliga la filayo ganacsiga inuu sameeyo mustaqbalka, iyo cash flow heerka haynta lacagaha caddaanka ah ee ganacsigu u sahla taabagelinta mucaamalaadka joogtada ah. market approach nidaamka suuqa waa isbarbardhigga qiimaha shirkadda lala barbardhigayo shirkadaha kale oo xogtooda suuqa laga heli karo haddana la baaxad iyo isku farsamo ay yihiin shirkadaasi. asset approach nidaamka hantida waa shirkadda oo lagu qiimeeyo tirada hantida ay leedahay marka laga gooyo qaanta lagu leeyahay iyadoo lagu salaynayo fair market value qiimaha laga daacad sheegay ee suuqa. qiimeyntu waxaa lafdhabar u ah financial performance waxtarka maaliyadeed sida heerka faa'iidada, kobaca dakhliga iyo haynta lacagaha caddaanka ah. market conditions xaaladaha suuqa sida market trends dhaqdhaqaaqa isbedbedelaya, competition loolanka shirkadaha iyo economic factors of the industry dhaqaalaha koox farsameedka. management and governance tayada maamulka sare iyo hagid wanaagga, regulatory factors shuruucda hirgashay, anshaxa, usluubta, dhaqanka maamulka iyo shaqaalaha shirkadda. intangible assets hantida aan muuqan sida brand name magaca, reputation sumcadda, maturity bisaylka, u dabacsanaanta adeega macaamiisha iyo heerka teknolojiyadda. risk factors khataraha laga filan karo suuqa, howlgalka iyo isbeddelka ku iman kara shuruudaha iyo shuruucda dowladda. haddii aan soo koobo, qiimeynta ganacsiga waa habraac u baahan professional judgment jaangooyn xirfad ku salaysan oo loo raadsado khubaro u gaar ah. haddii aad qiimeynayso ganacsi yar ama mid caalami ah intaba waxaa lagama maarmaan ah in si dhab ah loo fahmo tiirarka qiimeynta aasaasiga ah si loo gaaro go'aan ku tiirsan xogo rasmi ah oo horseeda faa'iido dhaxalgal ah.